xiisad siyaasadeed iyo jahwareer xooggan ayaa ka dhex ololsan madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka kadib dacwad culus oo si toos ah looga gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dacwadan ayaa la sheegay in loo gudbiyay hay'adda African Union Advisory Board Against Corruption, taas oo u xilsaaran dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa madaxda Afrika. Wararka laga helayo ilo xog ogaal ah oo ku dhow xafiisyada madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa xaqiijinaya in saddex ka mid ah hogaamiyaashii hore ee Soomaaliya sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ay si midaysan u saxiixeen galdacwadeed lagu eedeynayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu si sharci darro ah ugu tagrifalay hantida qaran, isla markaana uu ku kacay ficilo musuqmaasuq iyo xadgudubyo ka dhan ah shacabka Soomaaliyeed. Dacwadan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud booqasho rasmi ah uu ku tegay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, halkaas oo wararka qaar ay sheegayaan in ay qayb ka tahay qorshe siyaasadeed lagu adkeynayo saameyntiisa gobolada dhexe, balse mucaaradka ayaa u arkaya safarkaasi mid siyaasadeysan oo aan ujeedkiisu ahayn dan guud balse ah dan gaar oo xambaarsan u adeegidda xulufo siyaasadeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu leeyahay. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, isla markaana ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa hadal kulul waxa uu jeediyay saacadihii la soo dhaafay, isaga oo ku eedeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in uu gacanta ku hayo suuq madow oo uu ku iibinayo dhulkii danta guud, isla markaana uu xoog uga saaray shacabka sharciyeysan ee deganaa dhulkaasi. Hadalkaasi waxa uu cabsi geliyay qaar ka mid ah shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Villa Soomaaliya, iyada oo si weyn loogu baahiyay baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha. Dacwadan iyo eedeymahan culus waxa ay muujinayaan midnimo siyaasadeed oo soo wajahday mucaaradka Soomaaliya, kuwaas oo garab istaag xooggan ka helay madaxdii hore ee dalka. Tani waxa ay abuureysaa cadaadis hor leh oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu wajahayo xilli uu dalka wajahayo xaalado amni, dhaqaale iyo heshiis la'aan. Mucaaradku waxa uu hadda u muuqdaa mid si cad uga soo horjeeda maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, una diyaarsan in uu isticmaalo dhammaan dariiqyada sharci iyo diblomaasiyadeed ee suuragalka ah si ay uga hortagaan ficilada ay hadda sheegayaan ee ay ka mid yihiin xadgudubyada ka dhanka ah qarannimada iyo hantida danta guud. Waxaa xusid mudan in arrintani ay sababi karto baaritaanno caalami ah oo ku wajahan Villa Soomaaliya, taas oo muujin karta xaalad siyaasadeed ee Soomaaliya haddii aan xal degdeg ah loo helin.